rag baa habeen hore ka hadlayay TV-ga xalayna way ka hadlayeen golaha baarlamaanka weeye waa niman marna sheeganaya harti marna bari sheeganaya marna iskala saarayo dhulbahanta sheeganaya nimankaasi guubaabay wadeen meel guubaaba laga wadana had iyo jeer dee nabad ma timaado waxaanu idin leenahay qoladiina baarlamaanka ama guurtida ama raggiina halkaa jooga harti nagala joogo guubaabada ka wadaan golayaasha joojiya baanu idin leenahay waayo nabad iyo colaadi meel kuma wada galaan dadkiiba habeen walba hadalkiina dhageysanaya way kacayaan xaggii siyaasadda ka kicinaysaan xaggii qabiilkiiba ka kicinaysaan waxaan leeyahay waxba ay kama maqna distoorkana hal la furay yiraahdeen dadka wax la qabtaan guubaabada halkaa nabadday wuxuu dhimaysaa guubaabada habeen walba wadanka daayaan leeyahay waxaan anigu leeyahay distoorkan qoys loo furi maayo ummadoo dhanba anigana ha noqotay wax ka maqayin qoysaska ka joojeedo distoorku degdeg buu ahaa in cigaal baa sameeyay maaha kitaab quraana wax waa laga bedelayaa waxa la bedelayaa haddii ilaahay yiraahdo markii waqti la gaadho ayaa beelahoo dhan loo bedelayaa haddii se la yidhaahdo qoys ha loo bedelo qiimo daray noqonaysaa tusbax furmay buu noqonayaa taa habeen walba leedin waxbaa naga maqan distoor bedelana anigu horta waxa idinka maqan garan maayo soo diyaarsada distoorkan wax diyaarsan baa lagu qoray dagaal baa lagu qoray dhaawac baa lagu qoray caydhni baa lagu qoray ciidan la mideeyaa lagu qoray lacag la soo sameeyaa lagu qoray dalka inaannu xoraynay baa lagu qoray waanaynu hadda wada leenahay inaannu markiiba xoogsi tagnay baa ku qoran oo aannu wax soo dejinnay bariis bisil baannu horta idin nidha wax ka cuno oo aannu diyaar garaynay idinna mar walba waxbaa naga maqan baa leediin bal wakhtigaa marka la gaadho distoorkana ummadda loo furo waa laydiin eegi doonaaye idinkuna marka la furo waxaa kaga soo qayb gelaysaan la kaalaya waayo waxaa beelaynu nahay waxbaynu isku darsannay waxbaa ishtiraaki baynu nahay ishtiraakiguna ninna nin uma shaqeeyo waxa weeye wixii istoorka marka la furo kaga soo qayb galaysaan ee annagu waxbaanu qoray beelahaanu u wada qoray hoostana waxa aan idin sheegay hore kaga jira soo diyaar garaysta waxaan kaloo halkaa u soo jeedinayaa lacagta Soomaaliland anigu berberaan ka soo jeedaa intaasoo saraan bukay kaniin baan imaka ku hadlayaa in dhakhtar ka tagi waaya habeen walba halkaa marta culimaa u diinkii baa mara halkaasay ka baxaan dawladdii baa marta war 28 sanadood bari si kasta ha u kala duwanaadee dalku waxaan qabaa inuu qasaaro ku qabo qasaaraha inaga daaya waa la idin xaq dhowraya waxba idinkama maqna haddii la xisaabtaba waxaa gacanta maanta ku haysaan iyo waxa idinku baxay iyo waxa ka cabanaysaa waxa weeye waxa maanta idinku baxay haddii si wanaagsan loo xisaabtabo waxba idinka soo noqon kara war sida la idin xaq dhowrayo oo xaq dhowra dalka sida la idin dhowrayo u dhowra waxaan kaga baxayaa hadalkayga nabadda ha la ilaaliyo taas siyaasadaysan ha la ilaaliyo wixii aa wax kaga doonaysaan Soomaaliyana ka cabanaysaanna tacab weyn baa naga galay oo waxa tacabkaasi nagaga galay waanu idinka hawl badneena ka cabanaysaan waxa taadaan kanaan la iga badsano kanaan la qaatay war haddii berigii hore ganacsadaan ahaan jiray siyaasadda ma ahayn ninna $100,000 buu lahaan jiray ninna 20 buu lahaan jiray ninna 10 buu lahaan jiray wax la isa siiyaba nin waliba dasheelkiisu qaadan jiray warta waxa leedin waana laga badsanay iyo waxa leedin ha loo sinaado annagu sheelka yagaanu ku qaadanay hawl aanu galaanu ku qaadanay xoreyn baanu ku qaadanay sidaan hawlu sheegay bal badka la kaalaya waxaana idin leeyahay colaad iyo nabad meel ku la socotee habeen walba halka waxaan ka dhageystaan ku khatimaya rag wax guubaabinaya haddii guubaaba dhacdana waa colaad oo haddana la saamiga iyaga hadda la siiyo distoorkii hadda la siiyo wixii naga maqnaa waxaan ku khatimayaa waa la idin xisaabinayaa nabad ka soo shaqeeya nabad marka aad la timaadaan wixii idinka maqnaa hadday dhab noqdaan waa